jookarada Ingiriiska ee Jude Bellingham iyo Harry Kane oo bandhigooda aad loo daraabayay tan iyo bilowgii tartankan qaramada Yurub ee Euro 2024 ayaa Ingiriiska ka gaaray taasoo xulka Three Lions ka caawisay inay guul hal jar hal ah ka gaaraan dalka Slovakia oo ay 2-1 ku mareen. laacibka Ivan France ayaa Slovakia hoggaanka u dhiibay bartamaha galinka hore ee ciyaarta waxaana England u muuqatay in ay ka socdaan tartanka qaramada Yurub markii ay soo shidantay daqiiqada 95aad. yeelkeeda laacibka Jude Bellingham ayaa waxa uu dhaliyay kubad qurux badan oo labaalay ah taasoo ciyaarta u dartay waqtiga dheeriga ah halkaasoo uu sidoo kale ka xidigayay qanaaska qaranka Ingiriiska ee Harry Kane oo goolka guusha dhaliyay. xulka Ingiriiska oo inta badan waqtiga caadiga ahaa laga ciyaar wanaagsana ayaa imika waxa uu Switzerland oo Talyaaniga ku luqluqatay sabtiga kula balansan yahay magaalada Düsseldorf. kulankii kale ee Georgia iyo Spain Robin Lenormand ayaa gool iska dhali ah hoggaanka ugu dhiibay wadanka yar ee Georgia balse Rodri ayaa waxa uu khasab kaga dhigay in barbaro lagu kala nasto. wixii inta ka dambeeyay si wanaagsan ayaa loogu heesay wiilasha cusub ee Georgia oo waxa bandhig ku dhufta iyo ka dhacsha ku dhigay wiilasha kubadda xidigiska ciyaaraya ee Spain kulan ay goolal kale ku darsadeen laacibiinta Dani Olmo, Nico Williams iyo Fabian Ruiz. waxaana ugu dambeynta ciyaarta ku qabsoontay gegada Rhein Energy Stadium ee ku dhamaatay 4-1 lagu soo afjaray riyadii iyo sheeka xariiradii xulka Georgia oo runtii dadka ka yaabiyay. xulka Spain oo ay xaq tahay in lagu daro liiska xulalka ugu cadcad tartanka ayaa imika kulan adag waxa uu Jimcada magaalada Stuttgart gegada MHB Arena kula balansan yahay dalka tartanka martigelinaya ee Germany. kulamada kale ee dhacaya haddii aanu sii anbaqaadnana kulanka soo horeeya waa Belgiumka oo wareegga 16 ku aaday wiilasha Didier Deschamps ee Faransiiska oo ay ku balansan yihiin gegada Marcus Biel Arena ee magaalada Düsseldorf. labada xulba markii dhinaca warqadda laga eego waxay wataan xidigo xirfad wanaagsan ku leh kubadda cagta. Belgium ayaa sakaaninta labaad ku dhameystay group E welina ma samaynin bandhig u qalma qaysarada uu wato waxaana kulankii ugu dambeeyay uu ka badin waayay barbaro cad oo eber ah. Faransiiska iyaguna sidoo kale waxay kaalinta labaad ka galeen groupka D iyagoo ilaa imika soo bandhigin ciyaartii laga filayay. xulka Le Bleu ayaa 1-1 la galay kulankii toddobaadkan xulka Poland waxaana kulankan u diyaar yihiin in ay ismuujiyaan. marka dhanka taariikhda la eego waxa yaab leh in Belgiumku uu ka rikoor wanaagsan yahay dalka Faransiiska oo uu garaacay 30 jeer oo kamid ah 75 kulan oo dhaxsaday labadan xul marka loo eego Faransiiska oo badiyay 26 jeer. Belgium iyo Faransiisku waa labada xul ee isugu badsaday in ay kulmaan waxaana marka la eego kulamada iyagu ay iskaga hor yimaadeen ay 37 kulan ka badan yihiin kulan kasta oo ay xul kale ku wajahaan. Faransiiska ayaa se guuleystay 4 kulan ay ugu dambeeyay ee ay ku wajahaan Belgium tartamada caalamiga ah iyagoo sidoo kale ka dhaliyay 13 gool isu geyn ahaan kulamadaasi. Faransiiska ayaa sanadkan aad bakhiil u ah marka ay timaado dhinaca gool dhalinta isagoo ilaa haatan dhaliyay 2 gool waana goolashii ugu yaraa ee uu abid ka dhaliyo tartan caalami ah tan iyo koobka adduunka ee 2010 lagu qabtay dalka South Africa. Belgium ayaa markii saddexaad oo xiriir ah waxa uu soo tiigsaday heerka bugbaxda tartanka qaramada Yurub. imikana shaxaha laga yaabo ee labada dal. Faransiiska waa Magnon, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Rabiot, Kante, Dembele, Griezmann, Barcola iyo Mbappe. Belgiumna waa Castells, Castagne, Faes, Vertonghen, Thiat, Telemon, Onana, Luke Bakio, De Bruyne, Doku iyo Lukaku. kulanka kale waa Portugal oo wajahaya Slovenia oo ay ku balansan yihiin gegada Deutsche Bank Park ee magaalada Frankfurt ee dalkaasi Jarmalka. xulka Portugal oo koobkan qaaday 2016 waxa uu wareegan bugbaxda ka soo muuqanaya markiisii 9aad halka Slovenia ay u tahay markii ugu horeysay. Portugal ayaana guulo xiriir ka gaaray heerka gruubyada isaga oo 2-1 iyo 3-1 kala diray dalalka Czech Republic iyo Turkey sida ay u kala horeeyaan dhanka group F. ka hor intaanay la kulmin guul daro ka naxis ahayd oo ka gaartay wiilasha Georgia oo 2-1 diray kulankoodii ugu dambeeyay heerka groupka. Slovenia dhanka kale iyadoo 3 kulanba barbaro ayay ku dhameysatay group C iyadoo sida ku noqotay mid kamid ah 4 xul ee ugu wanaagsanaa ee lagu soo saaray kaalinta 3aad.
marka la eego diiwaanka ka dhaxeeya labadan dal mar qura ayay isku soo aadeen waxaanay ahayd ciyaar saaxiibtinimo waxaana markaa 2-0 ku badisay Slovenia oo gurigeeda ku ciyaartay. Slovenia ayaan sabadinin 6 kulan ee ugu dambeeyay ay ciyaartay koobka qaramada Yurub iyadoo mid ka tirsan laga adkaaday. Portugal ayaa sidoo kale ugu yaraan 2 gool ka dhalinayay 5 kamida 7 kulan ee ugu dambeeyay ee tartanka Euro ama koobka qaramada Yurub. Portugal ayaa sidoo kale wareegga 16 lagu reebay dufcadii kan ka horeysay ee Euro 2020 waxaana tartanka ka diray xulka Belgium. Arbaha xulka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa 11 gool ka dhaliyay qabtaha xulka Slovenia ee Jan Oblak. Haddaan eegno shaxaxa laga yaabo ee labada xul, Portugal waa Costa, Cancelo, Pepe, Diaz, Mendes, Vitinha, Balhinha, Silva, Fernandes, Leao iyo Ronaldo. Sloveniana waa Oblak, Karnisnik, Tarkuzic, Biol, Balkovec, Stojanovic, Elisnik, Gnezda, Serin, Malakar, Isborar iyo Sesko. Waxaana ka ganaaxan Yansa. Maxamed Xaaji, Hadalsame TV.